wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaalad dhacdo xanuun badan ay ka dhacday degmada Caabuduwaaq ee waqooyiga gobolkaasi taasoo loo geystay hooyo Soomaaliyeed hooyada oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Foos Aadan Nuur ayaa waxa si arxan daraha u dilay koox hubeysan kuwaasoo goobta isaga baxsaday dilka dhacdada falkan ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Ubax ee degmadaasi waxaana la sheegay in xilliga la dilay marxuumadda Allah u naxariistay ay ku sii jeedo gurigeeda ilo dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dableyda dishaaweynaydan ay wadada u galeen kadib ay rasaas kala dhaceen qaybaha sare ee jirkeeda taasoo sababtay geerideeda wararka ayaa sheegaya in ragga hubeysan ay ahaayeen burcad doonaysa inay dhacaan marxuumadda balse markii ay wax ka waayeen ay sidaas ku dileen ciidamada ammaanka ayaa goobta gaaray dhacdada balse kuma guulaysan inay soo qabtaan raggaasi oo goobta ka cararay Caabuduwaaq ayaa waxaa hore uga dhacay dilal qorshaysan kuwaasoo inta badan salka ku haya dhacdooyin aanu qabil oo ka jira halkaasi dilka haweeneydan ayaa ku soo aadayo xilli magaalooyin kale oo ku yaala dalka lagu dilay gabdho Soomaaliyeed taasoo walaac ku abuurtay guud ahaan dadka Soomaaliyeed Bahjah Smart magaalada Muqdisho.